waxa maanta lagu dhawaaqay natiijada ka soo baxday imtixaanaad si cadaalad ah looga qaaday oo loo galayay shaqo ka banaan damdamiska magaalada Boorama. imtixaankan qaadistiisa iska kaashadeen macallimiin ka socday wasaaradda waxbarashada iyo taliska damdamiska heer qaran ayaa waxa halkaas ka hadlay ugu horeyntii taliya ku xigeenka damdamiska qaranka waxana isagoo ku dhawaaqay natiijada imtixaankaas ka soo baxday uu yiri ciidan weynaha maanta ku guuleystay ee ka soo baxay 760 ciidana ayaa waxa kaga soo baxeen 22 qof oo ay ku guuleysteen waan ugu hambalyeynaa agaasimaha fulinta ciidanka damdamiska isaguna halkaas ka hadlay ayaa yiri hay'adda ciidanka damdamiska 25 xubnood way u haysay in loo tababaro laguna muxuu ahaa bilaabo damdamiska degmada Boorame iyo gobolka Wadal 22 waa fireman waa nimanka imtixaanka ku soo baxay ninna ma aanan garanayn hadduu hore u sii joogay iyo haddii uu imtixaanka imka maanta soo fadhiistay waa isku kaayimid haddii hooyo aabooda dhalaan way soo baxayaan intii imtixaan qaadata nasiibkooduna uu siiya kii ku hadhana waxaan leenahay saaxiibada soo hambaliye intani waa bilow hay'adda dabdamisku xawaaray ku socotaa way ka badan doonaan tiradu intan maamulna aan ka ahaa meesha 3 sanadood marba marxalada ay naga soo martaba aan ku guuleysanay imtixaankii maanta farxadna ay noo tahay dil oran jiray macaqolanima lagu qaatay hebel baa lagu qaatay hay'adda damdamiska markaan arkay in loo yacaday joogi jiray oo yiri burcaan imtixaan ka galon damdamiska helay markaas aan ogaaday in hay'adani maxaan ku idhaahdaa marka in hay'adani tahay cadaalad hambalyo waxaan leeyahay ardayda 22 in hor taagan ee ku guuleysatay duqa degmada Boorame iyo xildhibaan Siciid Rooble Xoosh oo halkaas ka hadlay ayaa iyaguna tilmaamay marka xigta waxaan u mahad celinaynaa hay'adda dabdamiska Soomaaliland agaasimaheeda guud iyo shaqaalaheedii iyo saraakiisheeda oo dhan ee hawsha suurta galiyay run ahaantii aad bay noo farxad gelinaysaa wana rajo soo muuqata waxa oo rajada soo muuqata waxa weeyaan hay'adaha kale Soomaaliland inay sida cadaalad ah sameeyaan waxa inay cadaalad tahay ku garanaya hawshani 2015 markii imtixaan baan qaadaynaa arinta loo diyaar galowba la yiri dad badan baa arintii leexiyay oo maamulaha oo odayaalaha dad baa meel lagu ururiyay 25 qof ahaa hay'addu waxay ku adkaysatay inayna qaadanin ina kii gurigeyga jooga ku jira wala mutacalinaha oo haray waan ku qanacsanahay aan soo tusnay meesha ku qancaan bana wasiirka iyo taliyuhu markii yimaadaan dhagax dhigi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo وعلى رعافي تيفي قرنكا برما